kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan si walba aad inoo daawanaysaan kusoo dhawaada warka telefishinka Somali News oo maanta idinka iman doona dabcan xaruntiisa magaalada Muqdisho. warka waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Aydruus Maxamuud Iimaan. qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa kamid ah baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa kaga dooday isgaarsiinta dalka. wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta dahrogtay kulan looga hadlayay dhibaatada gudniinka fircooniga iyadoo ay ka soo qayb galeen haweenka kala socda maamul goboleedyada dalka ka jira. madaxweynaha Somaliland oo ku sugan magaalada Burco ayaa xariga waxa uu ka jaray mashaariicyo horumarineed isagoona sidoo kale kuwa kalena dhagax dhigay. wafdi ay hogaaminayso safiiradda dowladda UK u fadhisa Soomaaliya ayaa maanta ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. wafdi uu hormuud ka yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Masaari ah ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xisbiga talada haya ee kulmiyo oo ka hadlay sababaha xukuumadda Somaliland ay talaabooyin horumar oo wax ku ool ay uga sameyn weyday gobolka Togdheer. qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay xubinteena sportiska ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Somali News ee magaalada Muqdisho.